بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارة الشرفت له وأن سلامينا أرنتان خير رئي سفر كيسبا laga hadlay siyaabo kala duwan looga hadlay waxaan jeclaan lahaa inaan muxuu ahaay u warbixiyo golaha maadaama aan goobjoog ahaa khayre waa la socotaan waa prime ministerka Soomaaliya arrimaha wuxuu u joogay galmudug muxuu ahaa labada isbuuc soo dambeysay markii dambena wuxuu soo gaaray gaalkacyo arrimo ku saabsan isla galmudug markii uu gaalkacyo intuusan kasoo tagin cadaado wuxuu soo diray fariin uu leeyahay maadaama gaalkacyo aan imaanayo haddii aan gadiga galmudug aan booqdo waa jeclahay inaan gaalkacyo dhinaceeda kalena salaamo puntland adiga madaxweynaha markii hore isla xiriireen madaxweynuhu wuxuu yiri waxaan jeclaan lahayn anagu in muxuu ahaay mar gaarana loo yimaado marka asaguna wuxuu yiri aniguna waxaan rabi lahaa inaan saacado dadka aan booqdo adigu hadalkaas xoogaa waa laysku u yimid in laysku yimaado oo go-aan la wada qaato xoogaa waa iska adkaatay communicationkii waxaa yimid wasiiro 4 ah wasiiradii markay yimaadeen waxay la kulmeen protocol ayuu leeyahay ra'iisul wasaare Khayre waxay isku afgaran waayeen qaabkii muxuu ahaayay ra'iisul wasaare uu ku imaan lahaa dhinaca Puntland wasiiradu waxay ku adkaysteen annaga nooma socon galmudug buu u socday mana doonayno siyaasadayadana ma ahan inaan dad soo saarno oo dhex galo oo uu muxuu ahaay ka dhex khudbadeeyo laakiin haddii uu rabo halkan inuu yimaado waxaan u sameynaynaa annaga wasiiradaha u tagayna waa keenaynaa dad kooban oo u soo diyaarinaynaa intaas baan anagu u sameyn karnaa kadibna waa celinaynaa meeshu ka yid baan u celinaynaa arrintaas xoogaa waa u cuntami weyday waxay yiraahdeen waa ra'iisul wasaarihii dalka wuxuu rabaa inuu muxuu ahaayay dareemo inay gaalkacyo ka tahay magaalooyinkii uu muxuu ahaayay ra'iisul wasaaraha u ahaa oo kale wuxuu rabaa inuu dadka u tago wuxuu rabaa inuu mashaariicda socota booqdo wixii uu ka qaban karo uu ka qabto waxaan rabnaa inuu dadka shaah la cabo wasiiradu waa diideen arrintaas xoogaa waa adkaatay waa soo dhaxgalnay ismida Puntland qaarkood iyo anigu saaka aroortii baa waxaanu tagnay hotel Al Jazeera waanu la fariisanay xoogaa dhexdhexaadin baan sameynay waxaanu niri ninku waa ra'iisul wasaarihii dalka dalkuna ma kala aha yani ma kala laha muxuu ahaayay xuduudo ma kala laha arrimo siyaasan anaga kala hadli mayno laakiin ninkan u ogolaada inuu magaalada yimaado dadka booqdo arko ciddu asagu awalba muxuu ahaay sheekay wadeene ciddu asagu uu wax u ballan qaado muxuu ahaay asaguna ku qanca sidaa annaga si aysan sadbaag noogu yeelan oo hadhow mustaqbalka aanan u dareeminin muxuu ahaay waxaa loo diiday inuu yimaado dhinacii Puntland inuu yimaado dadkana waa taqaanaa cidna ma xukunto marka waxaan niri intii odayaal iska socday inta tagaan ay baraxley ugu tagi lahaayeen intii dhalinyaro ugu tagi lahayd waan ugu tagan of course intii dadku inta yaacaan halkaas marti ugu noqon lahaayeen dee sharafta laga xigo ha yimaado meeshiisa cidna waxba yeeli mayo annaga muxuu ahaa garaada nooga qaadi mayo arrimo siyaasadeed kala hadli mayno adigu wasiirada aniga iyo isimadu aad baan u cuslaynay waxaanu niri nimankan ha loo fududeeyo waa ceeb ilaa iyo shalay in la isku jiito ha yimaado iyo ma imaanayo markii dambe waxaan isla go'aansanay in muxuu ahaay uu yimaado marka hore madaxtooyada yimaado dad loogu diyaariyo ilaa dhowr boqol ah ururada qaybaha bulshada ah kadibna uu garoonka booqdo istaalka booqdo jidka booqdo meelahaas booqdo jadwalkan waa midka aragteen oo warqadiisu ay sidaa tahay markii dadkii la diyaariyey oo dadkii qaarna lagu diyaariyey muxuu ahaayay meeshii madaxtooyada ahayd lagu diyaariyey garoonkiina dhalinyaradii soo buuxisay maadaama dhalinyaradu waa iska taqaanaan garoonkoodana waxay rabeen in muxuu ahaay contribution ay uga helaan agayna de waa iska ogtahay dhalinyaro waxay iska rabtaa soo dhaweyntaas iyagoo siyaasad uma jeedaan garoonkii dhalinyaradu waa soo buuxiyeen markii ay soo buuxiyeen ballantu waxay ahayd 9 saac iyo bar in muxuu ahaayay ay ugu tagaan
wasiiradu ay ugu tagaan meeshuu degan yahay kasoo kaxeeyaan meesha shirka la keeno marka shirka 6 barka ay tahay garoonka booqdo marka istaalka meelaha la sii marmariyo markay ahayd 9 saac iyo barkii oo asagiina la bisan yahay oo diyaar yahay oo wasiiradii sugayaan baa wasiiradii war keeneen waxay dhaheen war baa naga soo gaaray garoowe kulle dowladooda la soo hadashay waxaa la yiri magaalada 2 baawur oo qaraxa ku jira shirarkii oo dhaxal kansal gareeyo 2 baawur oo qaraxa ku jira markii hore dadka dhan run bay u wada qaateen laakiin arrimihii markii dambe inay arrin siyaasadeed tahay oo lala soo hadlay oo la yiri shirka hal la baajiyo baa loo qaatay haddana waa ku noqonay waxaanu niri karaama darro waaye isimadii iyo annagii iyo wasiiradii intaanu dadkii siinay go ahead oo kaalaya niri oo aanu niri 9 saac bar ra'iisul wasaaraha waa loo tagayaa waa la soo kaxaynayaa madaxtooyadu seexanaya casha loogu sameynaya halkaasaana muxuu ahaa bari ka dhoofaya aanu niri dee waa ceeb qaraxu hadduu rabo ceebta qaraxa iyo ceebta daran iyo muxuu ahaa yes no ceeb waaye marka waxaan dhahnay dadkan ha loo tago oo shirarka yaan la baajin maya baa la yiri go'aankaas waa cad yahay magaalada security threat baa ku jira shirarka ha la baajiyo kii madaxtooyadan baajinay waxaan aragnay dhalinyaradii inay isabaabuleen meesha soo buuxiyeen sida sawirkaas adin soo diray aad arkaysaan markii ay muxuu ahaa buuxiyeen annagu niyad jabna ma rabno karaama darana ma rabno gobolkaana waxa waaye waxaan u joognaa interestigiisa inaan shacabkayga niyad jabina ma rabno in uu nagu reebo raad kale nagu reebo iyo cuqdad iyo muxuu ahaa waaba meeshan loo ii diiday iyo marmarsiyo iyo dhalinyarada laftirkooda ay kacaan oo ay yiraahdaan xorriyadii baana la ka qaaday daraadeed anigu waa diiday in muxuu dhalinyarada la kala dareeriyo muxuu ahaa waxaan wasiirada mar labaad ku khasabnay in aan u tagno oo muxuu ahaa soo kaxayna at least oo aan madaxtooyada keeno muxuu ahaa dhalinyarada oo iska salaamo wasiiradu naguma aqbalinin in wasiirada la salaamo maadaama ay muxuu ahaa shirka baajiyeen oo wixii oo dhan kansaleen waxay dhaheen wixii bari ka bilowday aan lahana gaarsiiyo marka sidaas aan ku keenay muxuu ahaa wasiiradu raali kama ahayn laakiin de option bay noo noqotay inaanan ceeboobin oo karaamadu naga lumin wasiiradu waxay ku noqonayaan garoowe ra'iisul wasaaruhu waa dhoofiya dadka gobolka joogaya oo de ceebtu qabanayso oo martidu ay ceebtoodu qabanayso waa isimada iyo dadka iyagan anagu jooga waaye anagu saasaan u geynay hadduu la qosli lahaa iyo hadduu u gaalkacyeyn lahaa iyo hadduu la shaacireyn lahaa ujeedkaygu wuxuu ahaa inaan meeshan siyaasad iyo waxba jirin dhalinyaradaas ha farxaan annaga dhalinyarada iyadu yeysan naga xumaan ayagana waxba u ballan qaaday wuxuu yiri isbartibada ay la dhamaystirayaa meelaha kalena wuu tegi kari lahaa laakiin nasiib darro markii aan ka soo noqonay si ballantu ay madaxtooyada la tagay oo ay ahayd inuu dego oo boorsooyinkiisa alaabta u saaraayeen waxaa la yiri madaxtooyada ma degaysid meesha ka timid ku noqo sidii buu u noqday deegaankiisii buu aaday laakiin de at least one step forward baa dhacay ugu yaraan yacni chaoskii jiray oo dadka qaarkood waa mudaharaadayna waa wareey ra'iisul wasaarihii baa la diiday annaga laftirkayga magaaladan amnigeedu wuxuu nagu yahay qaali buu nagu yahay meel fog baan ka soo qaadnay 2 sano xoogaa aad buu u fiicnaa maanan rabin in mudaharaadiyo iyo balaayo iyo xabado iyo yacni intaas ay dhibaato nagu abuurto laakiin intaas relief bay ahayd ciyaalkii tareetna ma dhicin xabadana ma dhicin sidii bay iskula muxuu ahaaye shaacireeyeen waa la kala dareeray sidii baa lagu tagay asna cidiisiiba ku noqday laakiin de waxay ahayd arinta ugu foosha xun oo dhacday waxay ahayd madaxtooyadii oo inta loogu tagay la yiri ra'iisul wasaare madaxtooyada degaysa oo la keenay oo soo dhex istaagay oo baawurka meesha irdeeda soo istaagay in la yiraahdo degi mayso orotag inta ayaa mushkilad dhacday de muxuu ahaaye de ceebtaas iyo fadeexadaasna kulli ragaalkacooda dhan ay saaran tahay qaybna waa iska muxuu ahaay hadda cuqdad badan ma uusan qabinin waa ka raali gelinay meeshiisii buuna ku noqday guriga uu galabta kasoo guuray buu ku noqday saasayna ku dhacday marka hadday saxayadii hadday fiicnaan lahaydba sidaas arrinta u dhacday dee waxyaabaha muxuu ahaaye loo baahan yahay in golahan oo kale loogaga hadlo oo xal laga gaaro
way fiican tahay puntland horey baan u sheegnay waxa waaye inay ama federaalka banaanka ka marto oo aysan waxba ku darsan oo wasiir ka aadin oo agaasimo ka aadin oo qof shaqaalaha ka aadin oo aan isku filnaano iyo inaan la macaamilno waxba kama dhaxeeyaan marka xamarna waa jira lug baan kula jira halkaana waa jira waxaana waa diidaya yes no waxaas ma shaqeynayso waa qodob loo baahan yahay waxyaabahan oo kale in halkan loogaga hadlo de kolley muxuu ahaayey raad waa nagu yeelanaysaa ama hadday noqon lahayd diidmadan iyo objectionkan hadda madaxtooyada loo diiday iyo annaga laftirkeena kala qaybsanaanta aan kala qaybsanay oo ah dad raadinayay in magaalada amnigeeda iyo nabadgelyadeeda iyo dadka ishaysigooda laga shaqeeyo iyo intaasoo waxaa joogay nin oo reer puntland ah taliyihii booliska joogay oo reer puntland oo nagu cawday oo la wilmaaday reer maradaha naga ridnina waxaa joogay aqoon-yahano reer puntland waxaa joogay kumanaan kaleeto oo ayaguna saraakiil ah taliyihii kulligood oo le anagu reer gaalkacyan ka soo jeedna waxaa joogay muxuu ahaayey niman kale oo elite oo ayaguna ka soo jeeda xagga oo iska dhigayay dee reer gaalkacyood inay dad soo dhaweyn karaan maradaha naga ridnin ay yiraahdeen wallaahi waxay iska ahayd xaalad ka adag bay ahayd oo xarasha wasiiradan aniga dambi ma saarayo waa niman shaqaale ah waaye junior waaye de waxa weeyaan waajibkoodii amar baa la soo siiyey amar haddii la soo siiyana waxa weeye de muxuu ahaa ismada gobolka jooga iyo shacabka iyaga anaga muxuu ahaa dadka iyaga waayeelka gobolka jooga de anaguna go-aan waa qaadan karnaa waa dhihi karnaa waxyaabaha masiiriga ah oo gobolka de waa qaadan karnaa dowladuna waxaan leenahay hadhowto annaga waa dowladayadii raalli baan ka nahay arrimaheeda iyo siyaasadeeda inaan gallo ma rabno laakiin wixii annaga amnigayaga iyo shacabkayaga iyo dadkayaga noo keeni kara intaasoo kaleo amni daraa noo keeni kara ama consequence xun noo keeni kara beri ka maalin oo la leeyahay dadkii diiday muxuu ahaa martigelinta waa qaadanaynaa dee waana ku faraxsannahay aanan ka wada hadalno laakiin ma jiraan wax kale intaas aan idiin sheegay waaye waxaana jeclaan lahaa yani haddii laga doodayo saas in looga doodo laakiin waxba ma jiraan annaga goobjoog ahayn from the beginning to the end sidaas ahayd. Assalaamu calaykum.